maalintii shalay ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre uu safar shaqo ugu kicitimay dalka Qatar isla markaasina uu safarkiisu daaranaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayaa waxa uu maanta ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre uu kulan la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar ayagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal u dhaxeeya iyo sidii ay dalka Qatar u maalgashan lahayd dalka Soomaaliya iyo ballanqaadyo hore u ballanqaaday dalka Soomaaliya sidii loo sii wadi lahaa kulanka ay wada qaateen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Qatar ayaa waxa ka warbixiyay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya waxaana hadaladiisi kamid ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre wuxuu booqasho ku yimid dalka Qatar galabtay wuxuuna kulan la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda kulanku si wanaagsan ayuu u dhacay wuxuuna ahaa kulan meel dhar ah waxa ugu muhiimsanna waxay ahaayeen xoojinta iyo cilaaqaadka labada dal iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicdii dowladda Qatar ay ka fulinaysay Soomaaliya ama ay ballan qaaday inay ka fuliso oo u horeeyo jidkii magaalada Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowhar isku xirayay iyo dekadii Hobyo oo ayadana go'aan laga gaaray ayaana filaya insha Allah taala siday sheegeen mar dhow inay dirahayaan ay dirayaan mar dhow guddi farsamo kadibna loo bilaabi lahaa shaqadeedii ayadana aad baa looga wada hadlay waana la isla meel dhigay Abdulqaadir Abdi Wahab Naasir Talasame wararka telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa.